بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. waxaan ka soo sheekaynay geerida iyo arrimaheeda, sida ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay naf walba inuu xayaatada uga qaado. sababtu waxay tahay qofka adduunka jooga maanta ama dadka adduunka jooga waxay isugu jiraan qof daalim ah iyo qof madluum ah, qof xaqiisa la qaatay iyo qof xaqiisii xaq islaameed qaatay. haddii la yidhaahdo aakhira ma jirto, waxaa meesha ka imaanaya noloshu inay wax qiimo ah lahayn, waayo qofkii la dulmiyey ayaa laga yaabaa inuu adduunka ka tagay asagoo aan loo aarin. qofkii daalimka ahaa asagoon dulmigiisii laga goynin ayaa dhici karta inuu adduunka ka tegey. idan yowma alqiyaama ilaah wuxuu ugu talagalay inuu makhluuqa ku kala abaalmariyo, qof walbaa wixii uu samaystayna laga jaasiyo. sida ilaah uu yidhi: faman yacmal mihqaala darratin khayran yarah waman yacmal mihqaala darratin sharan yarah. idan taa waxay tilmaamaysaa qiyaamaha ilaahay miicaadka iyo wakhtiga uu u sameeyey inay tahay in lagu kala bixiyo makhluuqa, oo qofkii daalim ahaana dulmigiisii laga abaalmariyo, qofkii madluum ahaana waxii lagu dulmiyey inuu ilaahay jasihiisa ka siiyo subxaanahu wa tacaala. cajaladdan waxaan ku tilmaamaynaa haddana ahwaasha qiyaamaha jirta iyo dhibaatada weyn ee naga horaysa. ilaahay kitaabkiisa munazalka waxa uu ku yidhi: yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum, wardadow ilaahiina ka cabsada. yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladihi. waxaad ka cabsataan maalin waalidka uusan wiilkiisa waxba u tari karin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. yowma alqiyaama loola jeedaa laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay. kii la dhalayna waalidkii dhalay uu waxba u tari karin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. inna wacda allaahi xaq, ballanta ilaah uu qabtay run waaye, waa mid xaqa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ee falaa tagurannakum alxayaatu addunyaa, noloshaan adduunka yay idin kedinin, noloshaan adduunka yay idin sirin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. walaa yagurannakum billaahi algharuur, shaydaankana yuu idinka kedinin ilaahay taacadiisa subxaanahu wa tacaala. waxaa laga yaabaa inuu kaaga dhiga wakhtiga inuu dheer yahay, waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo toobadaada waa weli, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inuu qofku ku maaweeliyo. sidaa darteed waa arki doonaaye marka qiyaamaha la gaaro oo dadka ahlu naarka naarta loo diro, shaydaanka albaabka ayuu istaagaa inta aan cadaabka la gelin ka hor. khudbad dheer ayuu u akhrinaa baa la dhahay dadkiisa. ilaahay wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala fii suurati ibraahiim: wa qaala ashayطaanu lamaa qudiya alamr ina allaha wacadakum wacda alxaq. shaydaanku wuxuu dhahaa marka amarka la xukmiya buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala: ilaahay waa idiin yaboohay ballanqaad xaq ah. wa wacadtukum faakhlaftukum, aniga waa idiin yaboohay waa idinku beeniyey. wamaa kaana liya calaykum min sulطaan, aniga wax xujoon idiin kaystay ma jirin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii. waa idin wacay waa isoo ajiibteen buu leeyahay,
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انتهى الدقالنا نفتنا الدقال لي هيبوضاي إلى سبحانه وتعالى شيطانك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم aniga miihi mid idin gargaari kara idinkuna matihiin kuwa ani ii gargaari kara qodbada dheer markuu aqriyo ayuu ilaahay amraya dukhul iyo inay markaa cadaabka galaan sidaa darteed qiyaamahaas iyo dhibaatadeeda ayaa wixii ilaahay naga karsiiyay caawa aan ka sheegi doonaa qiyaamaha markii ay soo dhawaatay ilaa wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala koonku inuu isbedeli doono ilaa wuxuu tilmaamay fa idaa bariqa albasar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ويا أيها دتك سؤالي أو وحي دهن أيانا قرمي نقولي ساعة قيامه تاسي ويدين بوضاي إلى سبحانه وتعالى وحيكو ويدينا ينبو يري إله مالنت قيامها أي دعيسو أي واحد تهضى فإذا برق البصر مركا انتهقوا وريرو أو ددك انتهوذا أي أولي وايان إني عادي أي استاجيان وإن نقطك ورسن بوضاي إلى سبحانه وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر ضيح إيا بشنا لمذوبي يبوضاي إلى سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر ضيح إيا قرحذا لكلميو يقول الإنسان يومئذ أين المفر إنسان كمال انت وحودها انتي لو أرضابو إلى سبحانه وتعالى أين المفر مفرك إيا ماشا لآذا يمانت انتي واي كلا لا وزر وزر إيا ميل لو أرضو مغنقل يلو قال مجرتبو إلى ربك يومئذ المستقر إلى حقي سالو سبنانا مالنتا إلى آية كالوحو كتل مامي مركا قيامها لقارو إذا الشمس كورت إن قرحت الله دوبي دونبو يري إلى سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت حدقها وسوق بنا ينبو يري إله أروك كسو دادنا ينمان توضبا وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت بورها ولسعسين بوير إلى سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت هشت من سيدك أهنا والضيعا وحالو لجيدا هشي أورك لهيد أوط المذيذ إيسو دويد ayaa la dayaca oo qof hananeeya ama ixtiraama ama dabagala ayaa markaa la waayna sababtu waxay tahay dhibaatada maalinta jirta ayaa ka weyn buu ilaahay tilmaama subhanahu wa ta'ala waxa la soo kulmina wuxuushta iyo baxalaha oo dhan buu yiri ilaa subhanahu wa ta'ala intaas oo dhan waxay tilmaamayaan qiyaamaha imaashaheeda iyo sida koonku uu noqonayo إلى أساقو سيت الماما يوحو يري إذا زلزلت الأرض زلزالها أرلد هدي قرير تقرير كذا وأخرجت الأرض أثقالها أي صوبح سوح الله لوحي عليس أو كل حجري وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وإنسان كؤير هذا محاد عيمانتا ما لها أي ما أي شيء ثابت لها أرلد سان ما أهاجر إما حاكد عيب إليهم بضي إلى سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ما لنتاس أخبار تذي كهد ليس أرلد ويورمي سابو يري إلى سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها إلهي أيان أوحي ذي سبحانه وتعالى إني هذا الشو متقانين هذا الكذب يري النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب توحيدهن الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سأياؤك مرك النبي وحي يري أخبار تيذا أي كهد ليس وحواي قف والبا وحي كم مرقاتك عيسى وحي أكرك يذا كسميي يوم فلان إيا مال هبل إيا ساعد هبل وحاس إيا وحاس أيو يسميي ساسي لذا هيبوضي إلى سبحانه وتعالى إذن قيامها مركا أي سودة واتواي أرمها صوتا مركا أي دعايان بونك الله أفوفا يا مركي دنبي ملك بونك أفوفا يبوضاي نبي صلى الله عليه وسلم مروك هلاي دادك أدونك ما أنت جوغ سيء تمتعان وأي أراحي سنايان ملكينا أفكا أوصاري بونك أوسوغا يوختك إلى أمر لها مركبونك اللي يري إلى وحكوت المامي سبحانه وتعالى ونفق في الصور بونك أيا ليري أما ليرنا
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله waxaa dhintay oo argagax u dhintay wax allaala wixii adduunka joogay oo arla ku sugnaa samana ku sugnaa waa bunka qiyaamo ee ugu horeeya ee markaa la yeerinaayo maqluuqa in allaala intii dhinneed ayaa ku dhimanayo kulli markii ay dhintaan fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah waxaa loola jeedaa baa la yidhi malakulmowdka iyo malagaa buunka yeerinaayo iyo jibriil ayaguna waxay ku dhimanayaan labada nafqa inta u dhaxayso waayo wax adduunka herayaa ma jiro saan xalay soo tilmaannay kulla shayin haalikun ilaa wajha kullu man calayha faan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلهي كل ساهرة سبحانه وتعالى وح الله لوحي إله نفقه قليو مخلوقا أي أدونك لقوينا لما وبابا آيان حدقه وصوقتين ضيحي والد مذوبيي قرح ذي دباتا لقارسيي أرمها صدنبو إله الشيخ سبحانه وتعالى marka nafqada ay dhacdo oo lagu wada dhinto oo dadku dhan ay wada dhinsan yihiin ayaa waxa la yeerinaa haddana buunka labaad nabigu wuxuu yiri 40 ayaa u dhaxaysa labada buun yeeritaankooda Abu Hurayra xadiiska laga wariyaa la weydiiyay 40 sano miyaa baa la yiri abaytu buu yiri ma ogi 40 maalmood miyaa ma ogi buu yiri 40 bil miyaa baa la yiri ma ogi ayuu yiri laakiin waxa loo badan yahay in 40 sano ay u dhaxaysa labada buun yeeritaankooda waqtiga marka la gaaro ayaa haddana waxa la yeerinaa buunkii kale ila asagoo tilmaamaya muxuu yiri subhanahu wa ta'ala rasuulka sallallahu alayhi wa sallam lana sabr gelinayo oo loo tilmaamayo dadka inuu isaga sabro sug ayaa la yiri oo ka jeeso oo waxaad sugtaa yawma yad'u daa'i ila shay'in nukur maalin daaciga uu ugu wici doono shay la inkiro buu yiri oo qiyaamaha markaa ah buunkii labaad ayaa la yeeriyay buunka labaad marka la yeeriyo dadka oo dhan ayaa ku soo dhalanayo oo ku soo baxayo waa maalintii xaq ahayd sida ilaahay uu tilmaamay subhanahu wa ta'ala dadku ma sugayaan buu yiri ilaah illa sayhatan waahida hal qayla kaliya ma ahane ta'khuduhum wa hum yakhsimun waxay qabanaysaa wali ayagoo doodaayo rasuulku markuu tilmaamay saacada qiyaamada dhicitaankeedu wuxuu ku tilmaamay maalin inay tahay dadku ay suuqa joogaan ay wax ku kala gadanayaan laba qofood ayagoo midka maradiisii qaatay intuusan weli duubin kan kalena uu dhiibin lacagtii ay saacadii qiyaamo ku dhacaysaa nin hashiisii soo maashay caanaha soo wata intuusan afkiisa gaarsiinin ay saacada qiyaamo ku dhacaysaa ta'khuduhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un ma awoodi karaan inay dardaarmaan buu yiri ilaah iyo inay ehelkooda u soo noqdaan dhibaatadaas ayaa dhacaysa oo ilaahay uu ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala haddaba marka dhibaatada ay dhacdo nafqatu thaniya la gaaro oo buunkii labaad la afuufo dadkuna ay ka soo wada baxaan qubuurta ilaa subhanahu wa ta'ala asagoo tilmaamaya uu yiri waxaad sugtaa maalin daacigu ugu wacaya ilaa shay'in nukur khushan absaaruhum yakhrujuna min al-ajdaad ka'annahum jaradun muntashir dadku way khushuucsan yihiin buu dhahay ilaah maalinta waxay ka soo baxayaan qubuurta waxaad u malaysaa jaraad iyo ayax muntashir ah oo faafaaya ayax ayaad u malaysaa buu yiri ilaah subhanahu wa ta'ala ayad kale ilaah wuxuu ku yiri al-qaari'a mal qaari'a wama adraaka mal qaari'a qaari'a waa ism asmaa'da qiyaama kamid ah tii wax garaacaysay oo mashaakilkeeda iyo dhibkeeda dadka ku garaacda ayaa qaari'a la yiraahdaa waa qiyaamaha mal qaari'a qaari'adu maxay tahay wama adraaka mal qaari'a maxaanu ku ogeysiyay waxay tahay buu dhahay ila subhanahu wa ta'ala yawma yakunu an-naasu kal farash al-mabthuth ومالين ددكو اي نقونayaan sidii faraash iyo baalalay ama koronkaro la kala firdhiyay oo kale faraashku waxa loo jeedaa markuu roobka yimaado bahalka nalka ku dhagdhaga iyo kaasoo la qabtay oo la kala firdhiyo kale noqonayaan buu dhaay ilaahay wa takunu aljibalu kal'ihn almanfush buuru waxay noqonayaan suuf la garaacay oo la jilciyay oo kale saas ayuu ilaahay ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala
qiyaamaha maruu ilaahay tilmaamay muxuu yidhi inna yawma alfasli kaana miiqaat maalinta qiyaamo ee la kala baxaayo waa maalin miiqaat ahoo ballan u saaxiib ah fasli waxaa loogu bixiyey daalimkii iyo madluumkiyaa la kala bixinaa wiil iyo aabbihiis oo maanta isku dhex jira oo labadooda xaq aan kala raacin iyo mid raacaa la kala bixinaa wax allaala wixii xaq diiday iyo wixii xaq raacaa la kala bixinaa miiqaat waayo buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وما لنبونك قيام الليرينايو أو إذن كوح كوحة إيماني سامبو يري إلى سبحانه وتعالى فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب سماوات كلا فرفرا إردأوا كلا نقنيا وسيرت الجبال فكانت سراب وحل سعود سينا بورها سراب يدلنتاد يوح أنجرين أو كلا نقنيا بوري إلى سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصاد جهنمنا ما لنتا عمري قل أي أصاحب تهي أو وحي سوغيسا ضدك طاغين تأه إحد قد ميبوضي إلى سبحانه وتعالى qiyaamaha marka boonka la yeeriya dadka qubuurtay ka soo baxayaan laba hab ayaa loo soo kala bixi doonaa habka koowaad waa dadka muttaqiinta ilaahay uu yidhi yawma naxshuru almuttaqiina ila arraxmaani wafdan qolada labaad waa mujrimiinta wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirda saasaa loo soo kala baxaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala dadka muttaqiinta ah waa la soo bixinaa qabrigaa laga soo bixinaa allaha raxmaanka xaggiisaa loo wadaa ayagoo wafdi ah oo wufuud oo kale loo ixtiraamaayo waad aragtay wafdiyaalka adduunka sida maanta loo ikraamo oo loo maamuso oo loo sharifo ka waran rabbulciza qofkii maalintaa wafdi u ah seed u malayn kartaa ama aad suuraysan kartaa in loo ixtiraami doono ama loo qadarin doono ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa dadka wufuudda u ah yawma naxshuru almuttaqiin ila arraxmaani wafdan wanasuuqu almujrimiin dadkii mujrimiintoo dembiilayaasha ayaan soo quminaynaa buu dhahay ilaa jahannama wirda wirdiga waxaa loola jeedaa ayagoo ooman oo dhulka lagu jiidaayo ayaa loo wadaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala dhanka jahannamo dadka mujrimiintana xaaladoodaa saas ah wajaa'at kullu nafsin macahaa saa'iqun wa shahiid naf kastaa waa la keenaa micigeeda saa'iq ayaa ah mid kaxeeya oo soo wada iyo mid shahiid ahoo ku markhaati kacaya buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala haddaba marka sidaa loo soo kala dhasho oo loo soo wada baxo waxaa la imaanayaa macsharka iyo goobtii qiyaamaha ee ilaah dadkuu ku kala xukmin lahaa subxaanahu wa tacaala maalinta marka meesha laysugu yimaadaa qoraxda la soo dhowaynaa qadar mayl ayaa la keenaa buu dhahay nebiga dadku waa dhididayaan buu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ilaa 70 dhudhun dhididkooda uu kor u galo hoos u galo dhulka qof walbaa biqadari camalihi ayuu la ekaanaa dad ayaad arkaysaa anqawyaalka iyo lugaha uu u jooga dhididkooda dadaad arkaysaa jilbaha uu u imaanayo xaqwiga iyo meesha macawista ama suunka laga xirto daduu u joogaa dadna waa liijaaminaa buu dhahay nebiga oo ayagoo dhan buu markaa qarinaa qoraxda marka maalintaasaa loo soo dhoweeyo 7 qofood ayaa carshiga raxmaankaa la harsiinayaa buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh 7 yadilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dillah maalin hoos uu jirin ilaa hooska ilaahay maahane subxaanahu wa tacaala 7 qofood ayaa allaha raxmaankaa carshigiisa hoostiisa kursi loo dhigaa oo ka fiirsanaya oo dhibkaasoo dhan aan qabin 7 rasuulka midka koowaad wuxuu yidhi al-imaamun caadil madaxweyne toosan oo caadil ah oo diin wax ku maamula aan qabiyaalad iyo eex ku soconin aan xumaato samaynin oo qawaaniin iyo sharci iyo waxyaaba dagaalo ay dejiyeen aan dadka ku xukminin ee diinka alla wax ku xukmiyey imaam caadil ah ayuu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh carshiga raxmaanka hoostiisuu harsanaa maalinta qoraxda la soo dhoweeyo madaxweyne kasta waxaa loogu talagalay inuu diinka wax ku maamulo oo xaqa iyo daacada ilaah uu socodsiiyo oo ilaahay uu ka cabsado subxaanahu wa tacaala cadaalad uu ku kala maamulo dadka waayo maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabar qureysheed wax xadday markay wax xadday ayaa nebiga la yidhi yaa la hadlaya sala allahu calayhi wasalam
gabartan Qurayshiyad waaye oo dadka reer Makhzuumiye ka dhalato qabiilooyinka ugu waaweyn gacanta laga magoy kare nabiga halala soo hadla salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi nabiga qof loo diri karaa ma jira ayaa la yiri illa Usaama ibn Zayd maahane oo nabigu aad u jecel yahay salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi warna uusan ku soo celinaynin asaga ha loo diro Usaama loo diray kama fiirsanin radiyallahu anhu rasuulka ayuu u yimid markaasuu dhahay yaa rasuulallah Faadima waxbay xaday hal iska cafiye gabar Makhzuumi oo Qurayshiyad waaye gacanta ma laga goyn karo xanaaqa maalinta nabiga uu xanaaqay weligiis ma xanaaqin salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi أسامة أذيك ما مانتك ينتيب ويرى أتشفع في حد من حدود الله تعالى حد حدودها إلهي كمذا ما دفاعي أسامة ومانتا وانيكو ضدك أجعل صلوات الله وسلامه عليه ساس ما الله فيرين نبيك منبرك أيوكو استاغي مركاسو أمد أقود بيي ويرى ضدك أذينك إذن كهري وحا هلاغي أنهم كانوا وحي أهايين إذا سرق فيه مضاعيف ضدك ضعيف ضعفضاء مركي دنبي كلان أقاموا عليه حدكي كأوغي جيرين ددك أشرافتا مركي دنبي سميانا ويعفين جيرين ددكي هورا أرنتا ساهلاكتي حدنا وحاد إيشاكتين إن قبدا مخزومية لعفيو أيو الله صلوات الله وسلامه عليه dadkii ugu horeeyay arintaas ayaa halaagtay wa aymullah baaqi ahashada ilaahiyan ku dhaartay dhahay nabiga wallahi law sariqat Faadima binti Muhammad laqada'tu yadaha tawhaday mabaxadina haday Faadima binti rasuul ahaan lahayd oo gabartayda gacantan ka goylaha buu dhahay sallallahu alayhi wasallam gacantan ka goylaha hebel ha loo taga iyo saan hala yeela iyo meesha ma taalo Usaamana waxa la yiri atashfa'u fi hadd min حدود الله تعالى يا أسامة ما أنت ما دفاع ذي وح إلهي هلا سميه يري هلا ضعف ما أنت تريبه الله صلوات الله وسلام عليه ما ذحضو هدي سيدا النقضان بو إلهي عرش الرحمن كهوستي سكرسي أوديغا لكن سيدا أي ما أنت كسو علان هدي النقضان ألا أكتي سوناكم ملها ذاتك أمرذا أما مذحضا سدح أيا الله قيبيا لبا وأهل النار مدنا وأهل الجنة بو الله صلى الله عليه وسلم لبا أهل النار كوامد حق أنبران دين أن أقان أو يردد كان حكمنا ننك نوعاس حتى هدو دينك إسلامك وافقه أو سيد الشريعة وافقه إسك وافق آداء الله يتعظه وأهل النار صوبت وحيطاي أذيقون دين أقان إن وحكنا وحكمسه وشيء ممنوعه لغفي عنيه كاللباد وان الحق برتو حق يقانو حق يكاللحظي نينك نوعا سوى أهل النار نينك سدحاد واقف دينك إلهي برتي أوكو عمل فلي أمدنا كحكميي نينك نوعا سكلية أي أهل الجنة مركاء سيدا درتد بو رسول كيري إنكم ستحرسون الإمارة مضحتني ما تكد ذالي سين مانتا وستكون ندامة يوم القيامة ما لنت آخر شلايب إذن نقندون تابو الله صلى الله عليه وسلم محاكوكي يكا جاري دون قيامها مركل لجارو هذا بقفك مسلم كوائن سيدا يأجاذا وقفك أجوه رئيس أويهي إمام عادل كلا بعد رسول كوحيري وشاب نشأ في عبادة الله وشاب كبر بارا يا إلهي دين كيسي عبادتي سبحانه وتعالى كلام يا فسق حمان يا حرام وح إلهي دين أن كبر بارين طاعة إلهي دين الله كبر بارايا وقفك الله صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله دلن يرى ويلها أهاضو قبرها أهاتو إلهي طاعدي سكبر باري أو كوكوري أو كويناذي أو إلهي دينكي سماهان حمان ألقو كرين كسدحاد وحجر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد حتى يعود إليه وان قلبي مساجدك كحريهي قلبي مساجدك كحرا مركو صبح كدكتو ظهر كربا إنو آذو ظهر مركو كدكتو ربا عسر كإنو آذو مساجد ذا إلهي أي قلبي سكحريهي إنو شق حلال ونظيف آذايو إنو إهل كيسسو آذايو إنو ملفي عن آذايا ماهاني سكل أن مساجدك أفارقين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجد إله وحا عمر ومركز لقد حركا قف إلهي آمس سبحانه وتعالى إذا رأيتم رجل يتعاهد بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان بوضاي نبيك هذا أركتان المساجد كن نقنقنايو إيمان أقول مرقاتي كعا
ninka noocaasa nin iimaan leh waaye markaasuu aayaddaas akhriyey nebiga marka qofka saddexaad waa rajul qalbigiisa mucallaqka ah oo ku xihan masaajidada ilaa uu ka soo noqdo haddana uu rabo mar walba inuu masaajidka aado qofka afaraad buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ee carshiga raxmaanka loo harinayo warajulaani taxaabbaa fi llah ijtamaca calayhi watafaruqa calayh waa laba qofood oo alla dartii isku jeclaatay subxaanahu wa tacaala inay wax dhacaan iskuma jeclaanin inay meel afgembiyaan ayuu qabsadaan iskuma jeclaanin qabyaalad kale iskuma keenin alla dartiisay isku jeclaadeen buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ijtamaca calayhi watafaruqa calayh alla dartiisay isugu yimaadaan alla dartiisay ku kala tagaan waa qofka afaraada ilaah uu harinayo subxaanahu wa tacaala carshigiisa qof allaala qofkii ilaah dartii isku jeclaadaa wanaag ayaa la siinaa qiyaamaha marka la gaaro ilaah wuxuu leeyahy ayna mutaxaabbiina fiya away kuwa dartay isku jeclaan jiray ayna mutasaawaruuna fiya away kuwa dartay isku ziyaaran jiray ayna mutajaalisuuna fiya away kuwa dartay iskula fadhiisan jiray istaaga oo waxaad leedihiin manaabir iyo jaranjarooyin dahab ah jannadana waxaa laga siiyaa qayb dadka xaaladoodu ay sidaa tahay maca daalika ayay dadkaas waxyaabaha la siinaayo shuhadada iyo ambiyaalka ma jeersanaysoo dhahayso yaa iskale wanaagan nebiyaal maa iskale mayaa la leeyahay dad ani dartay iskula fariisan jiray oo dartay isugu imaan jiray oo dartay isku xiriirin jiray kama dhaxaysa waxyaabo kale iskuma keenin qabiyaalad ma isu keenin xisaabtan iyo xoolo ka dhaxeeyey sharka ma ahayn alla dartiisay isugu imaan jireen subxaanahu wa tacaala qofka shanaad ee loo harinayo carshiga raxmaanka hoostiisa waxa waaye buu dhahay nebiga ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال نينا قوعتي قروح إيا قبيل في عن الصاحب دمعضي إنو كزنيستو فقال إني أخاف رب العالمين أني عالمين تربي قودان كعب سنة يا يري ننكا ويبو الله نبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف الله أني إلهي ينكعب سنة وعالمين تربي قيداء ويغف الله لقفك إلهي كعب سنة إلهي وناك أيوسي سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما وماش إله كيري وقف إلى سبحانه وتعالى حسوستي أساق أوربا أما ربتي ناكتا إني حمان كسميسو أيري فقال إني أخاف الله رب العالمين qofka lixaad oo carshiga raxmaanka loo harinayo nasiibka u yeeshay maalinta waxa waaye buu dhahay nebiga warajulun tasaddaqa bisadaqatin nin sadaqa bixiyey fa akhfa'ahaa qariyey xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh gacantiisa bidixda waxay ogaan weysay waxa midigtu ay bixinaysa buu dhahay sala allahu calayhi wasalam macnaha waxaa loola jeedaa haddii la qadaro dhinaciisa bidixda in qof la fadhiisiiyo ma oga waxa ninka uu bixiyey sadaqada in la qariyo ayaa qiimo badan haddii la muujiyo mashaakil kuma sugna haddaan istustus loola jeedin in tubtu sadaqaat fa nicmaa hiya wain tukhfuuha wa tu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum buu dhahay ilaah sadaqada haddaad muujisaan nimcay leedahay haddaad qarisaan ayaa ka khayr badan oo ka wanaag badan sidaa darteed qofka lixaad ee nasiibka u yeeshay waa qofkaa sadaqada bixiyey qofka toddobaad ee ugu dambeeya ee carshiga raxmaanka loo harinayo waxa waaye warajulun dakara allahu khaaliyan waa qof asagoo keligiis meel ku jira oo khalwa ku jira ilaahay xasuustay fafaadat caynaah oo indhihiisay biyo ka soo qubteen buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh geeri looma soo sheegin dad ka dhintay looma sheegin hanti ka baaba'day ma loo soo sheegin ilaahayga khaaliqa ah ee weynka ayuu xasuustay cadaabkiisuu xasuustay indhihiisa biyo ka soo qubtay buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh fafaadat caynaah toddobadaa qofood ayaa carshiga raxmaanka kuraas loo dhigay oo ka badbaaday dhibaatada iyo howlka maalintaa jirta haddaba dhibaatada maalintaa jirta aad iyo aad bay u dhibaato badan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa ummadda markuu saa isugu keeno awwaliin iyo aakhiriin ayaa la keenoo meesha laysugu yimid dadkoo dhan way qaawan yihiin laqad ji'tumuunaa furaadaa kamaa khalaqnaakum awwala marra markii horesaan idin khalaqnay idinkoo oo kale ah ayaan idin soo celinaynaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala
nin walbo qiyaamaha la keeno dhar ma wato ma gudna kaba ma qabo sidaa ayuu ilaah ku soo jamcinaa subxaanahu wa tacaala caaisha waxay tiri radia allahu canha yaa rasuula allah alrijaal waannisaa yanduru bacduhum calaa bacd ragga iyo dumarka qaarkood qaarka kale ma fiirinaya miyaa nebiga aad ayuu ula yaabay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh yaa caaisha alamru ashaddu min dalika dhibaatada meesha taalaa ka adag ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dhinaca labaad ayaan ku dhammaystiraynaa cajalada inta qaybta ka dhiman muxaadarada wabilaahi tawfiiq yaa caaisha alamru ashaddu min dalika buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinta ama dhibaatada maalintaa jirta ayaa ka adag oo ka culus in qofka maalintaa arrintaa uu damco waa meesha ilaah uu ka yidhi wawujuuhun yowmaidin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة على شادباتوين كافرها بضن أيادتك كالقبصان دون قيامها مركا لقارو فإذا جاءت الساقة ساخذها دي ايتماض ومال يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه qof kasta xaalad asaga ku filan ayaa haysata buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala ma awoodi kara mana damci karo qof kaloo dhinaciisa taagan inuu markaa fiiriyo ama la hadlo waayo wiilka ayaa wuxuu ka orday walaalkiis hooyadiis ayuu ka cararay saaxiibadiis ayuu ka orday sida ilaah uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala waa maalin yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih hooyadiisii aabbiis uu ka orday buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala saaxiibadiisii iyo ilmihiisii ayuu ka orday hadday xaaladdu sidaa tahay yaa waayo qofka kale oo qof kale aadi kara ama fiirinaya ma jirto aqrabulqaraaba ayaa laga orday maalintaa haddaba dadka sidaa ayaa loo soo jamcinaa buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh qof kasta asagoo curaad ah oo qaawan oon wax wadanin ayaa la keenaa nebi ibraahim ayaa ugu horeeya buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh axadka ugu horeeya la marashaynaya maalinta qiyaamaha haddaba qiyaamaha ayadoo xaaladdu ay sidaa tahay oo dadku rafaadka ay ku jiraan ayaa waxaa la amrayaa jahannamo in meesha la keeno rasuulku wuxuu dhahay jahannamo ayaa la keenayaa ayadoo 70,000 oo hoggaan ku xiran halkii zimaam ama hoggaanna 70,000 oo malag uu jiidaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maruu tilmaamaya arrintaa muxuu yidhi wajii'a yowmaidin bijahannam yowmaidin yatadakkaru alinsaanu wa annaa lahu dikraa maalintaa jahannamaa la keenaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala wajii'a yowmaidin bijahannam yowmaidin yatadakkaru alinsaan maalintaas ayuu insaanku isxasuusanaa ee wa annaa lahu dikraa maxay waana qaadasho iyo xusuusba u taraysaa buu dhahay subxaanahu wa tacaala maalintaa maalin la waana qaataa lama joogo maalintaa maalin qofku haddaa camal fiican samaysana uu dhaho lama joogo wa annaa lahu dikraa wax waana qaadashay anfacayso mala buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala jahannamo marka meeshaa la keeno dhimbilaha iyo dhuxulaha ka soo baxaya ayuu ilaahay tilmaamay innahaa tarmii bishararin kalqasr waxay ridaysaa dhimbilo halkii dhimbilba kalqasri oo kale ah qowladan aan ku jirna la eg buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala kaannahu jimaalatun sufr waxaad u malaysaa ratiyo geel ah oo booran ama gudgudoodan dhuxulaha markaa ka soo baxaya jahannamo ayaa meeshaa la keenay dadku aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin waxay ku jiraan xiira iyo wareer dahshi iyo dhibaato ayaa ku sugan qof kastaa dhibaato ayuu maalintaa haystaa dadkii boqornimadii awoodda sheeganayay ayaa maanta aamusan wax la maqlaayaa ma jira buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala yowmaidin yattabicuuna addaaciya laa ciwaja lah wakhashicat alaswaatu lilraxmaan falaa tasmacu ilaa hamza la maqli maayo ilaa codgomadeed maahane shanqarta lugta maahane wax kaloo la maqlaayaa ma jira buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala yowma yaquumu alruuxu waalmalaa'ikatu safaa
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وحور ما يهضلا يا مجرى مالنتا إلا غبكو إلهي فصح ماهن سبحانه وتعالى وقال صوابا كاسنا هذا التوصن ماهن وحكى لأوكو هضلا يا مجرى dadka dhibaatada ay ku jiraan dadku meeshay wada taagan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wa allaha qahaarka ah wuxuu leeyahay limanil mulku al-yawm maanta ya boqortinimo ay u sugnaatay limanil mulku al-yawm ayu ilaah ku celcelina subhanahu wa ta'ala wax u jawaaba marka uu waayo ayuu leeyahay lillahi al-wahid al-qahhar ilaahay kaligiis ayaa maanta maamulka iyo boqortinimada ay u sugnaatay subhanahu wa ta'ala maanta waxa awooda iskale waa ilaahay maanta waxa boqortinimada iskale waa ilaahay ana jabbar ayna aljabbaruna fil ard ana almutakabbir bu ilaahi subhanahu wa ta'ala ana mutakabbir ayna almutakabbirun awadadki adduunka isku weynaysiin jiray awadadki isku weynaysiin jiray adduunka ayagoo daciifin oo baalka nica ay ka culus tahay ayaa la keenayaa maalinta qiyaamaha dadku markay rafaadka iyo dhibaatada ku sugan yihiin ahad hadlaya uusan markaa jirin ayaa waxa dhacaysa inay dadku gargaar weydiisanayaan yawmal qiyaama shafaaca ay weydiisanayaan oo waxay leeyihiin war dhibaatadan maanta na haysata waa naga tanbadisay bal qof ilaah agtiisa nooga shafaaca aan raadino mar leehana la kala xukmiya xataa dadku gobol waxay ka gaaraysaa naartaba hal la geliye in meesha xataa markaa laga wado dadku way soo raacayaan dhamaantood waxay u iimaanayaan baa la yiri nabi aadam calayhi salaam waxay leeyihiin aadam oo anta abal bashar basharkoo dhan ayaad aabba u ahayd ilaahay ayaa gacantiisa kugu qalqay ruuxdiisa ayuu kugu afuufay malaa'igta la amartay ayaa la amray inay ku sujuudo fadli iyo wanaag iyo qiimo ayaad leedahay waad u jeedaa rafaadkii dhibaatada maanta na haysato ilaahay agtiisa maanta nooga shafaac garaadadaada wax aan ku helno ilaahay noogu tag subhanahu wa ta'ala aadam wuxuu leeyahay xanaaqa ilaahay maanta uu xanaaqi weligiis ma xanaaqin mana xanaaqi doono aniga maanta ilaah waji aan ku hortaga marihi subhanahu wa ta'ala wallahi geedha cunin leeyiri ayaan cunay kiiskaas ayaa meel ii yaala maanta waxaan ilaah kula hortaga malaha i'madu ila ghayri warqafan ani ahayn aada qofan ani ahayn raadiya nafsi ayuu leeyahay nabi aadam calayhi salaam waa qofku ilaahay doortay subhanahu wa ta'ala wanaaga iyo qiimaha la siiyay yawmal qiyaama waxay ka gaaraysaa inuu yiraahdo nafsi nafsadeyda ilaahay maanta ha ibixiyo ahad kala ma xambaaran karo aniga ilaahay wajigiisa waxaan ku hortaga malihi ilaahay arintaha iyo cafiya maante qofaan ani ahayn raadsada dadku way soo baxayaan wali wuxuu u soo tilmaamayaa nabi nuux calayhi salaam nabi nuux ay dadku u iimaanayaan waxay leeyihiin yaa nuux anta awwalur rusul rasuulkii ugu horeeyo adduunka loo soo diro qoom gaala loo diray ayaa tahay samaaka allah abdan shakuur adoon shukrin badan buu ilaah kugu magacaabay kun sano ayaad qoomkaaga wacdisay ilaa 50 caam ilaah agtiisa wanaag ayaad ku leedahay war maanta dhibaatadana haysata ma u jeedido nuuxow rafaadkii mashaakilkan ku sugannahay ma u jeedid miya jahannama dhinaceena inay tahay ma u jeedid miya qoraxda in loo soo dhaweeyay ma u jeedid miya ishfac lana ila rabbik ilaahaga nooga shafaac maanta dadka meesha laga kala xukmiyo ee ilaahay markaa noogu tag nabi kasta dacwad ayuu lahaa buu yiri dacwadeedii fursadeeda qoomkeyga ayaan ku habaaray waa markuu yiri rabbi la tadhar ala al-ard min al-kaafiriin dayyar ilaahay halgal adduunka ha uga tagin maanta waxaan ilaah kula hortaga malihi i'madu ila ghayri nafsi nafsadeeda maanta allah ibixiye qofaan ani ahayn aada i'madu ila ibrahim والنبي إبراهيم آذى ويوا صاحبكي إي خليلكي إي وذيغي إلى سبحانه وتعالى dadkoo dhan way soo baxayaan waxa loo iimaanaa nabi ibraahim calayhi salaam waxay leeyihiin ibraahiimow waxaa tahay qofku ilaahay doortay
إلهي أيا صاحب كادكتي ور إلهي ما أنت نوغا شفاع إلهي ما أنت أكتاذا أما قراداذا وحانكو هلنو وروجيغا ما أنت وحانكو هلني إلهي أتك رفاضي نباتي مشاكل أيا نسارا مخلوقة ميشها لغا كلا حكميو دادكو دليدايان رفاضي نباتا كسوغان مع ذلك أيو ليهي ور إلهي أنيق صاحب أيو إغادكتي لكن سدح بين أيان شاقي انتان أدونك جوغي ما أنت إلهي هرتي سمتاقي كري أنا وأنا خليل من ورائي وراء متك أقدم بيان كسيدم بيان أيو ليهي نبي إبراهيم عليه السلام ورغفان أني أهين راد سدح ذباني وشاقينا ومرحاس كيسي أي لسعتو ملك جبار ويري ولا شيء مرنا ومركو يري أصنامتي مركي لججبيي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون مرنا ومركو يري إني سقيم سدح دون وحبين أهمئها وشي أيقو وحكو تسايي ما أنت أنيقو إلهي هرتي سمتاقي كري وحان الله كهرتاق مليه ورغفان أني أهين آذا دادكو أنا كدن بايا بحا أيو ليهي نبي إبراهيم عليه السلام اعمدوا إلى غيري قفان أني أهين أقست أو آذا اعمدوا إلى موسى نبي موسى أتقى عليه السلام أسقى أيا كليمك إلهي لورمي سبحانه وتعالى ومدونا ويسوى ذا أرديان وحيو إيمانا يا نبي موسى عليه السلام موسى مشاكل كما هيستمع أجهد دميا والرب قاق حقي سنوغ شفاع ما أنت دباتي كربا يا نغبضتي نبكي رفاتك ما أنت وحانا حميلي كرين أيو قاري إلهي أكتيسا نوغ شفاع ما أنت أي إليهين نبي موسى وحولي هاي نفسي نفسي نفتي إذا إلهي هاي بدباذي ما أنت ويا أني ونفدل كذا علي أمر أيان دلي إلهي وحان كفر تجمله ورقفان أني أهين آذا اعمدوا إلى عيسى عليه السلام نبي عيسى أتقى أيوليه عليه السلام نبي عيسى وإيمانيان أبلان أي ربك خلقي ذاتك أياد لهذا الشيء أظن هذا الجار في المهد وكهل وحجر إن الله أنت كل شيء داوين جرتي برسك إيا مشاكل كداوين جرتي وحد انتي آيات ألا درتي كنو لين جرتي أما إلهي إذنكي انت صدن أيو إله كو سميي شرفت هذا ما انت وحانكو هلنو إي إلهي نقل هذا منو جيدد ميا عيسى ودبكي رفات كنا هيستا مشاكل كي دبك أنكو جرنا ما أجيدد ميا اعمدوا إلى غير أيو ليه نبي عيسى عليه السلام أني قبا أني إيهو يذي أيان العابدو إلهينا لكدكتي كيس كاس أيام ميل إيالا إلهي وحان كفر تقمله ورغفان أني أهين آذا اعمدوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد أتقى أسقى أيا خاتم الأنبياء هاي نبي يو إيمانا يا صلوات الله وسلامه عليه أرنتي أي أولى السعود سينيان نبي صور راعي صلوات الله وسلامه عليه إسلام مركي إنو سمنك قبصد به مايو آوي إلهي دتك ميشها لغاك لوضو ويشفاع مجر إلا من بعد إذنه إلهي إذن كيسك بعد ما هني نبي سوء السعود عرش الرحمن كهوستيس أي سجود لدعا عبار أي سجود سنانا إلهي أيان أمانة يا أبو يروحا وليس لغو أمان عبار مركو إله إيغا آمسو سجود الله يدافو أيو إله ليه يا محمد ارفع رأسك محمد ومضحاق كر السوقات صل تعطي ويدي سوى اللغسينا واشفع تشفع شفع الطلب والله شفع أغبلا مركاسو ليه يا رب أمتي يا رب أمتي إلهي أمد ميشها لغاك لحكميو إلهي أمد ميشها لغا بحيو سيدا أيو ليه صلوات الله وسلامه عليه مركز أيا وحاب الله بنيسو انسرات كيل قدبو أو جهنم كركي هذا الله يالو إلهي سبحانه وتعالى نفو البوحو بلن أغاقاضي إنو جهنم كركي هذا مرتو وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا نفجرتا مجرتو إلا وارد واي جهنم كركي أروري سابو رهي
aayadda markay soo degtay asxaabta kulli way wada ooyeen kabacdi ayuu ilaah soo dejiyey thumma nunajji alladhiina ittaqaw wa nadaru adh-dhaalimiina fiiha jithiya in allaala inta ilaah ka cabsata waa gudbinaynaa dhaalimiinta ayagoo jilbaha ku fafadhiya ayaa meesha looga tegayaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala idan siraadkaa la keenaa siraadka jahannamo korkeeda ayaa la saaraa ummadda waxaa la amrayaa inay gudubto qof allaala qofkii maalintaa gudba ilaahay wanaag ayuu siinaa subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam siraadka marka jahannamo la yeelo maalintaa axad hadlayaa ma jira ilaa rususha maahane wa kalaamu rusul rabbi sallam waaye rususha hadalkoodana dadkii dhihi jiray annagu owliye ayaa noo waxtaraysa dadkii dhihi jiray annagu haddaan dariiqi hebel ka tirsannahay jannada meeshaan doonnaan nala ka gelinaa dadkii dhihi jiray annagu waxaana loo ballanqaaday jannada meeshaan doonno iyo dooqeena inaan ka qaadano xaaladda noocaasa waad u jeedaa waxaa hadlaaya rusushii waxay ku hadleen rabbi sallam ilaahowna badbaadi ilaahayou dhibka naga kori sidaa ayay yidheen buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh jahannamo ayaa la keenayaa oo siraadka korkiisa la saaraa kalaabiib ayaa ku xihan buu dhahay nebiga waa birkawaaneed oo midla shawki sacdaan qodaxda sacdaanka oo kale ah ma aragteen shawku sacdaan buu asxaabtiisa weydiiyey qodaxda sacdaankaee magaalada madiina ka baxda haabay yidhaahdeen saasoo kale waaye laakiin cidmigeeda iyo weynaanteeda ilaahay maahana cid kale ma oga subxaanahu wa tacaala anaa ugu horeeya buu dhahay nebiga axad gudbaa marka rasuulku uu gudbo salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ayuu yidhi ummadaha ayaa marka soo gudbaaya aniga siraadka korkiisa ayaan ku suganahay markaasaan leeyahay ilaahayow addoommada soo badbaadi ilaahayow soo nabadgeli ninka ugu horeeya wuxuu u gudbayaa sida biriqa oo kale ama hilaaca saasoo kale dadka qobolka mida u gudbaayaan waa dadka cibaadada iyo diinka ku dadaalay oo amarka ilaahay xoog u qaatay subxaanahu wa tacaala midka ku xiga wuxuu u soo gudbayaa sida dabayl oo kale waxaa loo soo gudbayaa qof baa qadar acmaalihii sida uu markaa la eg yahay qofaa sida faraskoo kale u soo gudbaaya qofaa qof ordaaya oo kale u soo gudbaaya ilaa markii dambe la gaaro qof soo gurguuranaya buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh fa makhduushun wanaaj marna birta way qabanaysaa waa xaganaysaa waa ka soo fakanaa waa xaganaysaa waa ka soo fakanaa ilaa marka dambe uu bannaanka u soo baxo nin baa soo socda haddana cabbaar markuu bartamihii gaaray hoosna uu ka soo tegay meesha ugu dambaysana uusan soo gaarin ayaa camalkiisii dhammaaday meesha ayaa looga tegayaa buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh dadku markay sidaa dhacdo arrintaa la soo gudbo rasuulku waxaa la amrayaa ummaddiisa inuu darka ka cabsiiyo webiga kawthar ayaa laga cabayaa biyo aad iyo aad u macaan waaye qofkii cabaas mar kale oomi maayo sidaa darteed ummaddiisa markay isugu timaada meesha oo la cabsiinaayo ayaa waxaa dhacaysa koox in meesha laga raacdeeyo kooxdaasi ummaddeeday ka mid yihiin buu leeyahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh gadaasha ayay diinka ku cayaareen ayaa loo dhahayaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh aniguna waxaan dhahayaa buu dhahay fasuxqan liasxaabi asaciir dheerayn ayaa u sugnaatay qolada asxaabu saciir dheerayn ayaa u sugnaatay iyo halaag haddaba dadka marka xaaladoodu ay sidaa noqoto oo xalka ay meesha la gaaro ayaa marka dambe ummadda waxaa loogu wacayaa in la kala miisaamo miisaan ayaa jira yowma alqiyaama miisaanka ilaah wuxuu ku magacaabay subxaanahu wa tacaala ama uu ku tilmaamay kitaabka munasalka ah ilaah wuxuu yidhi faidaa nufiqa fi suur buunka haddii la yeeriyo falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun nasab sheegasho reer hebelaan ahaa ma jirta buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala walaa yatasaa'aluun والاسميزاما فمن ثقلت موازينه قفك موازين حسناتك أي عصلاته فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه منك أي قفيف نقط ميزان كيس حسناتك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وعدتك نفط ضق ساريب إلى سبحانه وتعالى جهنمين كواردونان إلى آية كالوحو كير فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
qof allaala qofka miisaankiisa xasanaadka uu cuslaado wuxuu ku sugnaanaa nolol raadiya ah. wa amaa man khafat mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaadka qofka u khafiifo wanaaggiisii yaraado xumaantiisu ay badato fa ummuhu haawiya meesha uu u dulmayu aadaya waa naarta haawiye la yidhaahdo. wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. waa naar aad iyo aad u kulayl badan oo aad iyo aad u daran buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala. haddaba miisaanka ayaa jira, qof walba waa la miisaamaya. nin walba miisaankaaga xasanaadka wixii uu ku noqon lahaa siyaadso, taacada ilaahay ku dadaal, xaqa rabbi ku soco subxaanahu wa tacaala. marka ummadda sidaa loo miisaamo waxaa la qaybinaa kutubihii, qof walbaa meeshuu nasiib ka yeeshaa laga siinaa. ummaddu labay u kala qaybsamayaan, qola kitaabkooda gacanta midigtaa laga siinaa, qolana gacanta bidixda ah. fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi qof allaala qofka kitaabkiisa gacanta midigtaa laga siiyo fa yaquulu haa umuqra'uu kitaabiyah kaalaya kitaabkayga ila aqriyuu leeyahay. ummadduu soo dhexgelaa, farxad iyo suruur ayaa ku dhex sugan. haa umuqra'uu kitaabiyah innii danantu annii mulaaqin xisaabiyah waan u malaynayay xisaabkan wanaagsan inaan la kulmaayo. taacada allaan ku dadaalay, diinka allaan ku dadaalay, qiyaamahan u diyaargaroobay. innii danantu annii mulaaqin xisaabiyah fahuwa fii ciishatin raadiya nolol raalliyoo qiimo badan buu ku jiraa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. fahuwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliyah jannooyin sarsaraysa ayaa la gelinaa, qutuufuhaa daaniyah oo midhaheeda ay dhow yihiin buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. maxaa loo dhahaa marka kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya maalmihii tegay ee adduunka waxaad soo camal qabateen waaye cuna oo caba oo ku raaxaysta buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. qoladaa waa qolada kitaabkooda gacanta midigtaa laga siiyo. yaa soo haray qolo kale oo dhibaato iyo shaqinimo ku dhacday iyo nasiib xumo. wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi wa amaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi dhabarka gadaashiisa laga siiyo. waa isku mid, gacanta bidixda ah ayaa waxaa lagu dhejinaa dhabarka gadaashiisa, gacanta bidixdana waa laga siiyey, dhabarka gadaashiisana markaa waa laga siiyey. marka laga siiya kitaabkiisa gacanta bidixda ah muxuu leeyahay? fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya halaageeyo maxaa kitaabkaa lay siiyey. walam adri maa xisaabiyah maxaa la ii ogeysiiyey xisaabkan waxa uu yahay. yaa laytahaa kaanat alqaadiya maa aghnaa cannii maaliyah halaka cannii sulطaaniyah khuduuhu fagulluuh. waa marka malaa'igta la amraayo inay qabtaan oo ay dhulka ku jiidaan oo silsila dherarkeeda 70 dhudhun uu yahay oo dhudhunka malagga ah afka inay ka geliyaan, gadaal ay uga soo bixiyaan ayuu ilaahay amrayaa subxaanahu wa tacaala. marka waraa'a dahrihi laga siiyo muxuu leeyahay? ilaa wuxuu dhahay fasawfa yadcuu hubuuran wayaslaa saciira halaag ayuu u wacanaa, naarta saciirana waa gelaa. naarta saciira ayuu geli doonaa qofka xaaladiisu ay sidaa noqoto. haddaba dadka markay xaaladoodu sidaa noqoto oo kutubaha loo kala qaybiyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kala tilmaamay dadku sida markaa loo kala quminaayo oo nin walbaa jannada iyo naarta markaa loo gelinaayo. kaafiriinta ayuu ilaahay ka bilaabay subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala asagoo kaafiriinta cabir ka bixinaayo iyo habka cadaabka markaa loo gelinaayo. wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumura waxaa la quminaa oo la wadaa kuwii kaafiriinta ahaa oo rabbigood ku kufriyey dhanka jahannamo ayaa loo wadaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumura xataa idaa jaa'uuha ilaa meesha ay ka tagaan. weliba kaxaynta iyo qomitaanka la wadaayo waa kaxayn dulayl iyo dhibaato ay ku jirta saan soo tilmaannay ayaa loo wadaa ilaa laga geeya albaabka jahannama afkeeda buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. xataa idaa jaa'uuha markii ay tagaan ka bacdi futixat abwaabuha markaasaa irdaheeda loo furfura. inta kale waa xihan tahay, waayo kuleelkii iyo dhibaatadii ayaa la rabaa inay ku dhex sugnaadaan oo si xun kuleelku uu u galo oo hawaba ayba markaa gelin. markay tagaan ayaa la furfuraa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. xataa idaa jaa'uuha futixat abwaabuha
وحال يابايا ملائكتي كيد حيالك أها أمامولاي عذابك كواسا وحيليهين وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ورمحا دعي ميشان محاد أصوى مرتين مانتا جد كان محا إذن سوقات سيي رسول إذن كجدك تم إذن إيمان ميا رسول إذن كو أخرس آياتها إله كركينا ما إذن إيمان ميا عذابك إسكا إلالي رسول إذن تهضى ما أركن ميا كتب إله إذن سودجيو عذاب كان إذن كجدقاي ما إذن إيمان ميا ميشان ما ميل يماذا وددان محاد أسو قادين وينذرونكم لقاء يومكم هذا معكو جوابا قالوا بلى هذا إليهن ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلهي كلمة ذي عذابك أيا كافرين تكون حسبناتي إس إنكرد مجرتو محالو ليهي قيل ادخلوا أبواب جهنم قال البابها جهنم خالدين فيها وكل حواريسان فبئس مثوى المتكبرين كو إسقاط كبضاني كبر كبضانو إلهي الدين كي سيدي ذي مل إيكو سبنادان أيا باس لها ظالمين تساسا لو حكمنا أما لو كحينا وادتك كتابك وذا قعنت بدح ذا مركا لغسيي قولوينك قعنت مدكتا لغسيي فيري أيكنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أيغنا أيغو كوحا أيا لقمنا بوداي إله أولا كحينا أولا وذا حتى إذا جاءوها إلا عذا جنة أي كتغان وفتحت أبوابها وحال فتحت أبوابها البابه ذي لوسي فرفريبو راي إلى سبحانه وتعالى لو دياريي مأود كي ميشي قلي لها ينا جنة ولوسي برنتيي وقال لهم خزنتها ملائكتي كيد هايالك أها وحيليهين سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين نبت قال يكركينا هاتو طيب أياد نقطين عمل كينا طيب نقضي واحد سميسين أيا طيب نقضي قلوات كواري سامبالو ليه هيبوطي إلى سبحانه وتعالى أيقول مركم حيليهن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده إلهي أيام حدث كلب بلنقات كيسي نور رميي وأورثنا الأرض نلكينا دحرسيي نلك ونلك جنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أنقو ميشان دونك دقينا فنعم أجر العاملين عاملين تأجر كوذا أيا نعم الله بوضعي إلى سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أصحاب الجنة ما أنت شغل أي كسجيهين شغل كتعب يرفاتك أدونك وكلامها لكن وشغل وحند وحبيد تمتعي راح مركا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أيها يدمر كوذا حور العين تأحبا وحي كل حسويهم بناي إله ظلال إيه هوصص صريرا واوين ودهب يقيم كسميسان أين كد كينايان هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وح الله لوحي أي وعظان إيه وحي اشتهيان إيه فاكهات بلان أيام ميشا كجرة سلام قولا من رب الرحيم سلام إيه تهنيت أيا أغا إيمانيسو إلى حقس سبحانه وتعالى هذا وددك مسلمين تحالد ولا سداء أما ظالمين إيه كافرين إلى محير وامتازوا اليوم أيها المجرمون دنبي لياشي ومانت الصعمة ودنا عبيد إحدى مركا أبحا مركا الصعاء إله الله هطلا وحليه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وربني آدم ومكلا بلا منه أنو إلهاقي بلن مكو سين ميا مكو نهن ميا اسك إلال شيطانك ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين عذو عد أيو إذيهي وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ساس مكو نهن ميا بو إله إليه سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثير أفلم تكونوا تعقلون شيطانكو وحو دمي مقلوق يجيب الفربضان ايكو عقل قاضنا يمتهن ميا
markay qirtaan ayaa farta loogu fiiqayaa haadihi jahannamu allatii kuntum tuucaduun midaan ma u jeedaan waa jahannamadii laydin yaboohayey islawha alyawm bimaa kuntum takfuruun gala maanta kufrigii aad kufriseen sababtiisa ku gala buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala insaankii meeshaasuu taagan yahay shaytaankii baadiyayaa meesha taagan way murmaayaan insaanku wuxuu leeyahay ilaahayow kana i dhumiyey aniga ilaahayow camal fiican waa iska qabsan lahaa ilaahayow daacadaadaan ku dadaali lahaa shaytaankaana i dhumiyey shaytaanku wuxuu leeyahay rabbanaa maa adagaytuhu ilaahu anigu ma dhuminin walaakin kaana fii dalaalin baciid laakiin asagaa dhumid dheer ku jiray asagaa baadicad ku jiray oo waliba fog ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laa takhtasimuu ladaya waqad qaddamtu ilaykum bilwaciid labadiinaba horteyda ha ku doodina horay ayaan goodi idinkugu soo hormariyey ballan iyo wacdi horaan idinkugu soo sheegay maa yubaddalu alqawlu ladaya qowl agteyda ahaaday la bedeli maayo wamaa ana bidallaamin lilcabiid aniga addoommada ma dulmiyo ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala وقرمي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وما لجهنم أنكو دهي نبو دهي مبحسنتي مخلوق انت لغو الشبه ولغو بوحيو إلهي ليه هل امتلأت جهنمي مبحسنتي